khayriga ah ee Idoor ayaa deeq isugu jirta timir raashin iyo biyo waxay u qaybisay qoysas danyar ah oo ku nool tulooyin hoosta gobolka Shabeellaha Dhexe. dadkan loo fidiyay gargaarka ayaa isugu jira caruur waayeel iyo haween danyar ah oo aan waxba haysan kuwaasi oo ah qoysas barakacyaal ah. qaar ka mid ah dadka la gaarsiiyay deeqda ayaa ka mahadceliyay gurmadka loo fidiyay. إسلاك جعان تمسك كان سوق كر الله كدي كبير جوجو جل الله كدي وبالله توفيق. أنك هو يبي ماله وعلى بابا أي بي واو بابا ني شو واو بابا ني لا تقول عن جوك ناي تم إيشوا وجحسن تهاي صديق سي بعد باين وأنا هاي ساي أنا رسا قرتي بي لا إباهي شون وأنا هاي أنا شاو بعنا ونولو صوبيو جد شو أنت لوات روح عدمتي لوات عدمتي تم إيشان هذا بيجي ولا جيفتاي أو جالسين تهاي hay'adda khayriga ah ee Idoor ayaa ah hay'ad inta badan gargaar gaarsiisa qoysaska danyarta ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya waxayna hore gargaar u gaarsiisay qaybo kamid ah gobolada dalka kuwaas oo ay ku sugan yihiin qoysaska danyarka iyo waliba kuwa soo barakacay. deeqdaas oo markii hore u kaliftay inaan soo gaarsiino dadka markii aragnay xaaladooda aan ku soo wareegnay tuulooyinka saas ogeed waxaan jeclahay inaan walaalaheen la gargaarno deeqdaas in kastoo isku filleen aan jeclaan lahayn in waxyaalo badan la soo gaaro saas ogeed waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed in la soo gaaro walaalahooda tawaalaysan meel bay joogaan waxa ay ku badbaadi karaan si ilaahay inta roob uu keenayo ma barwaaqo ilaahay gelinay. Shamis Xasan Haruun SBS Muqdisho.